soo dhaweynaynaa gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenkiisa taliyaha ciidanka qaybta gobolka bari taliyaha saldhigga degmada dekada xildhibaano waxaanu halka aan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Saciid Xasan Shire oo in muddo maxaa gobolka ka maqnaa hawlo shaqo oo muhiimana gobolka hadda u yimi ayaanu saaka halka ku soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay mudane gudoomiye muddaad naga maqnay intii aad naga maqnayn waxa dhici karta waxyaalo badan oo aadan horay gobolka iyo degmada Boosaaso baadan ugu ogeyn inaad kala kulmi doonto ay ka mid tahay dhismaha garoonka Boosaaso ballaarinta wadooyin cusub aadan hore u marin oo tan ugu horeysa aan hadda ku marinayno jidka sodonka inta aad joogtona waxaanu jecelahay inaan nala qaybsato bal indhaynta iyo amniga iyo wixii horumar ah ee gobolka iyo degmada Boosaaso ay gaareen guud ahaan gobolka bari gaar ahaan degmada Boosaaso waxa kale oo gudoomiye aad xaq u yeelatay maanta oo aan golihii deegaanka soo shalay la xulay muddo dhow oo adiguna saac ka haray la dhaarinayo iyadana inaad nasiibkaaga ku siiyay inaad ku soo beeganto oo aad iyagana nala aragto iyada waxaan leeyahay maadaama aad taraag dheer soo gashay berri oo ah kala saarintii iyo doorashadii duqa magaalada inaa xafladda goobjoog aad nooga ahaato maanta waxa weeye waa ku cudur daaraynaa muddada taraaga dheer oo aad soo gashay waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland mudane Saciid Xasan Shire falyatafadal mudan sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam marka hore assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marxabaadka gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha ku-xigeenka taliyaha qaybta taliyayaasha kale oo taliyaha dekadu ka mid yahay xildhibaanadu anay ila socdaan iyagu waqtiga ka mid yihiin dhammaantiin aad iyo aad baan uga mahad celinayaa soo dhaweynta madaxda gobolka iyo cidda wehelisa saxaafadda iyo ciidamada iyo saraakiisha kulligiin aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa soo dhaweyntiina waa ku faraxsanahay imaanshaha gobolka bari caasimadeenna labaad ee dhaqaalaha aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horumarka ballaaran nabadgelyada waxa ka jira sida gudoomiyuhu sheegay Allah uu siyaashaan leenahay waana runtiisoo wax badan baa iga dambeeyay waa jeclaan lahaa insha Allah ilaahana waa ka baryaa in la gaarsiiyo diyaarad Boeing 77 markay soo fariisato dadka raacayna ka mid noqdo ilaahu waa ka rajeynayaa haddaan xilligaas sii noolaado oo joogo horumarka Puntland oo dhan ku talaabsatay anoo gudoomiyaha baarlamaanka aan ahay magaaladaana deegaan ahaan dadka degan baan ka mid ahay mid booqasho kooban iyo mid gaar ah oo shaqo intaba waa u yimi inaan arko waxa ka socda insha Allah maalmahana waa joogaya sida gudoomiyuhu sheegana madaxda gobolka oo mahadsan oo shaqo fiican ka haya gobolka aad iyo aadna runtii dadaal badan uga muuqdo shaqada gobolka hayaan wixii aan kala shaqayn karno waa kala shaqaynaynaa horumarka gudoomiyuhu sheegana waa kii madaxweynuhu noo sheegay oo khudbadihii madaxweynaha waa inoo ku duuban tahay in saddexda eerbood laga dhoofi doono haddii alla idmo insha Allah mar labaad iyo mar saddexaad baa waa ku faraxsanahay inaan imaado Boosaaso shaqada hadda muhiimka ah oo maadaama gobolkan gobol muhiim u yahay golihiis deegaanka iyo shaqada ay qabteen guddiga ku sugan waxaan rabaa inaan idin sheego gobolka baratakool ahaan ama gudoomiyaha ama wasiiraha gobolka cidii ku sugan
marti waxay uga tahay gudoomiyaha gobolka iyo tiimkiisa inta gudihiisa ku sugan iyaga xukuma waxaana ka garan kartaan hadda wasiiro waa joogan laakiin isaga protocolka inuu soo dhaweeyo gobolka isaga xukuma sida ugu soo dhaweeyo iyaga baan ugu soo dhaweynaya hadii alla idmo suuqyada isaga saaranta cid kasta gobolka ku sugan inay la soo xiriirto mar labaad mar saddexaad baa idin mahadcelinayaa qoladana saxaafadana waa mahadsantihiin insha Allah mar kale waa kulmi doonaa قول يو خير بان كل جنين رجينا يا مدحر قبل خيرين كذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته